بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة وحان سو دوينينا ولالكين قدوميها ميدوغ أفريكا محمود علي يوسف ونصوب بوغضي مانتا بوغشنو ويميدي كارديغاينا سوماليا دالكي ugu oo booqdo markuu xilka la wareegay kadib waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhawaaw ku soo dhawaaw dalkaagii iyo dadkaagii intaba ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan mahad ballaaran iyo abaal weyn u haynaa ururka midowga Afrika waqtiyada ciriiriga ahaa ee culayska badan u naystay Soomaaliya ka urur ahaan soo garab istaagay maxaan ku yiraahdaa inta maalinta baahida jirtay ee awoodooda ahayd ay ka jawaabi kareen uga jawaabay wax badan oo la taaba karana dalka ka qabtay oo ah fursad in uu ururka midowga Afrika fursad inuu u siiyo Soomaaliya in ay hesho space ama saaxo ay uga shaqeyso ku dhisato dawladaheedii iyo hay'adaheedii dawladnimada fursadaasi fursad aad iyo aad u weyn oo cadawgu ay Soomaaliya u diideen ayay ahayd ay ka hana waayeen inay dhistaan maanta dawlad fiican oo shaqeynaysa awood leh siina kobcayso si korayso weynaanayso ayaan haysanaa qayb badan oo kamid ah dadaalkeedaasi dadka Soomaaliyeed ayuu ka yimiday laakiin marna aanan iloobaynin aanan ka abaal dhacaynin wixii ay ururka midowga Afrika oo arintaas qaybta u ka geystay wiilal badan iyo gabdho badan oo Afrikaan ah oo aan dalkan u dhalan wax maslaxad gaar ah oo ay dalkan ka leeyihiin ayaga iyo dalalkoodaba aanay jirin ayaa halkan ayaga oo Soomaaliya ha istaagto lugeeda ku istaagta dhahayo u dhintay ku dagaalamay ku dhintay ku dhaawacmay marka arintaasi arin aad iyo aad u qiimo badan oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed maantana kaba si fiican aan leenahay intii hore oo nin Soomaaliyana yaqaan duruufeedana fahmayo xanuunka Soomaalida ahayna dhinaciisa uu ka soo qabtay ayaa mas'uuliyadii qaaradda maanta loo dhiibay ururka intaba sidaas daraadeed waa fursad kale oo dheeri ah oo mar kale dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ba heshay mudane gudoomiye maxamuud cali yuusuf soo dhawow Soomaaliya waxay ku ballan qaadaysaa intii karaankeeda ah inay kaala shaqeyso mas'uuliyadda ballaaran ee heer qaaradeed ah ee lagu doortay in ay ku sahlanaato fulinteeda Soomaaliya inay kaala shaqeyso oo ay kugu garab istaagto ayay diyaar u tahay mar walba mar kale ku soo dhawow dalkaaga amaasanta aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha ayaan doonay inaan horta mahad u jeediyo waayo kolkii aan ku dhawaaqay murashaxnimadeedii madaxweynaha ugu horeeyay taageersiga ii muujiyay ayuu ahaa qoraalna uu ku muujiyay alxamdulillaah ilaahay baa keenay guusha maanta sidii runta sharaf weyn ayay ii tahay inaan horta socdaalkayga ugu horeeya aan ku horeeyo Soomaaliya lino adan xadkayga ama koofiyadeyda gudoomiyaha midowga Afrika dhinac iskaga dhigo horta Jabuuti nimadeedii ayaa shucuurteydii ayaa ka weyn baan u malayn shucuurtaasina muddo 30 sano ayaan qabnaa wixii adeeg iyo isgarab taag iyo walaaltinimo iyo heel walaal wixii aan fidin karayna waan fidinaan u malayn in dheeraadana nigalama bakhiilayno Soomaaliga ka dheeraaleeyahay kolka waxaan odhan lahaa sidii runta mudane madaxweyne Xasan Sheekh dadaal weyn buu soo galay dalkii Soomaaliya agiisu isku taagay intuu talada hayo waayo maanta Security Council-ka non-permanent member ayaa Soomaaliya ka noqotay fadliga yaka isaga iskale talabaad East African Community ayay gashay Soomaaliya fadliga isaga iskale
deynkii weynaaye ee culayskii ee Soomaaliya saarnaana uu ka qaaday fadligana isaga iskale wixii islaaxaad la yidhaahay reform uu ku dhawaaqayna waa la garanayaa maanta Soomaaliya doorasho isku diyaarinaysa waxa la yidhaaho universal suffrage kaasi waa one man one vote waxa la heli karaa ma kolka hambalyaan leenahay shaqo culus baad qabatay waxa ka sii weyn la dagaalanka argagixisada tuutihii intuu gashado jabhadda ugu horeysa jooga madaxweyne karti leh maskax iyo xikmad dalkiisa ku wada weeyaan waa inay Soomaalidu taageeraan waxaan raacin lahaa haddaan nahay midowgii Afrika waan garab joognaa waan dadaalka waan sii wadaynaa wax maaragtay intaan anigu gudoomiye aan ahay wax joogsanaya maaha waxaan leenahay Soomaaliya kadarta way ka bixi doontaa khayrkiyo barakadii way dhowdahay caagwana waa habeen barakeysan weeyaan ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu Soomaaliya ka dhigo dal nabadaysan dal maaragtay dadku ay soo booqdaan ay ku farxaan sidii 200 sano ka hor ay ahaan jirtay khayraadka oday adeerkay safiirka ahaan jiray halka sanadku kolku ahaa 70 iyo 8 wuxuu oran jiray $100 ayaan biil ka dhigan jirnay mashaharkiisii aqalu kaga dhistay Djibouti hani iyo hilibkii iyo bariiskii aan duhurka iibsano habeenkii ma cunay jirin waan daadin jirnay koleba surfiyar baa ku jira laakiin khayraadka dalkan uu qabo inuu badan yahay ayaa la garanayaa kolka madaxweynuhu wuxuu iga lahaa bariiskan aad cunaysid xaqana lagu beeraa khudraddan aad cudaysid xaqana lagu beeraa xawaashkan aad cunaysid hilibka wax kastaba kolka waxaan leeyahay Soomaaliya khayraadkeedu uu badan yahay mustaqbalka dalkan uu fiican yahay hoggaan fiican baa loo baahnaa waanad qabtiin waanad haysiin assalaamu calaykum